wadayaal waxaanu ku suganahay xafiiska Minara Homes oo ah shirkad aad u weyn oo dhista guryaha si weyn looga yaqaano dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa ila fadhiya Sheekh Liban Ali Ciise oo ah agaasimaha guud ee shirkadda Minara Homes sidoo kalena madaxa suuqgeynta iyo iibka ee isla shirkaddan Liban Ali Ciise isku cusbin marar badan aad ka hadashay Minara iyo wax qabadkeeda maadaama iibkii iyo suuqgeynta aad madax u tahay agaasimihii guudna aad tahay campaign wadin guryo badan lagu dhisaayo dadka Soomaaliyeed loogu fududeynayo siday dib ugu soo guryo noqon lahaayeen inta badan dadka guryaha idinka iibsada marka laga soo tago dadka gudaha jooga ama Soomaaliya ba idin dhow qurbaha ka soo laabtaan qofku markuu qurbaha ka soo laabanayo wadanka sharci u baahan yahay waxaad hore u sheegtay in sharciyada ay u fududeynaysaan qaabku sharciga ku hela qofkii حمدي aad ma hasantahay waana rajeynaa su'aalaha noocaasina ay weydiinaysid maxaa dhacay dad badan oo macaamiisha markaasna weydiiyaan horta ogtahay Xamdi wadankan Kenya nidaam uu leeyahay dad badan oo ajaanibna waa joogan Soomaalida wadanka marti kuma deegaan ku leedahay iyo gobolo wadanka waxa jooga Hindi Arab cadaan qabiil kasta jooga wadanka marka sharci baa jiro loogu talagalay dadka foreign-ka markay wadanka soo galaan inay ku helaan deganaansho deganaanshaas u sababay qofka inuu waqti dheer joogi karo ilmihiisa hadday ku dhashaan ay sharci ku heli karaan si fiican sida darteed marka dadkii walaalihii Soomaalida waxay leeyihiin markaste Sheekh Liban haddii aan guri ka iibsano Minara sidee sharci ku heli karnaa sidee sharci ku heli karnaa su'aalaha ugu badan ee aad la kulmaan taas oo saweys qofka cabsiis u gal hantidiis ila wixii lacag waa gashay $400,000 gashay soo qofkii marka cabsi seen u gal hantida uga lumin oo wadanka xaq ugu yeesho sharciyo u baahan marka Minara waayadan dambe waxaan ku soo kordhinay in qofkii guri Minara ka gato inaan ka caawidoono procedure-ka nidaamka uu ku heli permit sharciga deganaansho anagoo isticmaalayna loo yaradeena qofkii markuu deynta dhameeyo oo guriga gato oo dokumentigiisa official sharcigiisa u dhameystiraya ayaa waxa u bilaabanaya process-ka caawinta oo sharciga uu ku helay qaabka sharciga ku helay soo sharciga marka hal sano permit heli kara 2 sano permit heli kara 3 sano heli kara 5 sano u badan taasoo sababayso qofkii marka wadanka markuu sharci yeesho inuu visa uga fiicanta أنا فيزا أو 3 بلاد إلى 6 بلاد على السيرة. وقتي وكدعة. هذا إحنا قلنا مركي إنه بحصور نقص صوب قفك هدنا هدو المهدو كله شو حقه ماله. وإنه سفارة دي سلا هذا وسفارة دي زجية. لقوا في حساب إنه قلنا مرة هذا بام تشيد. هو هاف 60 هذا 60 هافيست. صباح حق وحويه لك حتى عدد نفتيجا مركي شانس ودنك جوت إلى شرع كويش. بس بارك الله قاعد. بس بارك الله قاعد. سو درت مركي أنا من أروح عن وتر إنها كفل ذنو. قف كستو جوري نجاتو. inaan ka caawin doono procedure-kii nidaamku ku helaa sharciga permit-ka anagoo marina dastuurkii nidaamka wadanka waa gartay sharcigaasi ma wuxuu qayb ka yahay iibka guryaha marka hore oo dhaqaalihi waa lagu daray mise qofkaas waa waxaad ku caawinaysaan oo irdiha u furaysaan jeebkiisuna isticmaalaya su'aashaas waa su'aal fiican inay kala fahmaan ay u baahan tahay macaamiisha arimaha sharciga iyo permit-ka waa wax gooniya taas anaga waa facal khayr aan u qabanayna wala fududeynaysa lacagtaas iska fududeen yani qofkii maadaama wadanka marti ku yahay uu san garanin looyarada nidaamka wadanka uu garanin qofka markuu guri naga qaato oo naga gato intuu dad kale u gal oo dhici lahaay ama dhibi lahaay le permit ka isku dhaca waa ka wareysa dhibaato badan uu leeyahay wax sax iyo wax kale lama kala garan kuwa feega jiro oo qofka maartay wax sax inuu soo helin document sax oo lagu qiyaamo soo marka anaga waxaan ka caawinaynaa inuu qofka wax helo sax original ah document official helo looyaradan ku xireena lacag yar la iska bixiyay jirto canshuur dawladda qofka haduu procedure-ka buuxiyo oo nidaamka buuxiyo oo shuruucda wadanka u yaal u waafaqo qofka xaq wuxuu leeyahay wadanka inuu sii deganaayo maadaama investment uu geliyo hada waxyaalaha lagu helo permit-ku waxay kamid tahay ina wadanka gabar ka guursato ama qof xaas guur ina sameeysid oo guur ku qaad iyo inaad marka wadanka investment ku qaadid oo maalgelin iyo wadanka inaad ku timaado yani waxyaalaha la dhahay يعني سبونسر أما إنه هيئة كمال جلسوا أما معلنمو أتكون تماد أما جامعات وح يعني education system أنا معلن تلوصو عصري ودنا كم كفامد وكسير ما دام عددك وحبريس أم إنا ودنا وحكبرني سوجوس إن مدة أو مركز دولة كعاوي ساد ودنا كحوا برتيت سادرت مركز واحد كلي أو كعاوي كرقف كأنه فامد هير واسد حسنو
waa gartay weli ma jirtaa dad u sameeyeen ku caawiseen mise waa wax idin ku cusbaada weli ma jiro dad aan ku caawino waagi hore baahidaas badan ma jiri jirin laakiin waayadaan ay soo badan dadka waagi hore guriga iska gada jireen qaar investment ma imaanaya wadanka xagga dibadooda Mareykanka iska jooga lacagooda iska qaadanayaan qofkii marka baahi badan laakiin waayadaan maadaama wadamada Yurubka Mareykanka culeys uu ka jiro oo dhaqan xumo ka bilaabatay ilmihii lagala cabsanayo dadkii marka waxay rabaan marka haddii yimaadaan fiiso maanta wadanka waaba ka soo carareen ilmihiina la soo carareen soo maanta dhan sii soc ma geli karaan fiisana kuma noolaa karaan soo hadda dadka baleen waxay bilaabeen inayna weydiiyaan war waaba soo guureena waaba soo socnaa guryaha haddaan gadano shirkadda maxay naga caawi kartaa soo shirkadda marka procedure-kay bilaawday iyo qaabkii dadkaas guryaha ka gato sidii ku caawi lahayn oo si fudud xoolan uga lumi lahayn barina baasaboor Kenya isna ku qaato sharci ku qaato wadanka ka mid noqdo oo wadankii uu hanti ku yeeshay sharcina uu ka qaato markaas sidee marka fursadan dadku arkaan ay kula tahay macaamiishiina والله أنت فرصة وين وأركي دونا محد عاي سؤاله بدنا يفكر كودي إلى هالدور رميه النظام في عنه هلان شركات دان يكون كرسي ودتك وده معمول عن كهلان جورينا كيشت شرعنا كيشت ده محاكا مغن واسكو فوجس المية مركب هلا إنه وقت لبصر سدح سنة برشة قاتان دينتي برتان تربية في عن هلا سو بير مركب نقنا واسكو فلي سو أنت سبحان الله قد أنت دتك معاميش من نارة فرصة وين وقاليا أدين كلفتركين awood inta la eega inaad fududeyn kartaan dawladda xiriirkiina uu yahay wallahi awoodeena hadda waa process aan bilaawno oo rabno inaan marka aan waxa nagu dhaliyo waa baahida macaamiisha soo hadda arintu waa ku jirnaa qaabkii procedure-ka waxaan ka rajeynaynaa wax kasta adduunyada waa nidaam hadda adii company-gu nidaam ku soo laana arintan company-gu qofku ma dhaxis waa qofkii dawladda laakiin company-gu wuxuu ka caawinayaa looyaradii iyo wadadii soo marka lawyer wanaagsan oo nadiif oo adiga ku dhaceen oo ku qiyaameen oo waxba ka hadleen oo kugu xiraya company kor oo ka ilaalinaya soo marka si procedure oo nidaam oo si sharci ayaad wax ku helaysaa anagana marka waxaan isku dayeynaa xaq dawlad iyo xaq lawyer ba inaan ka caawino oo dadka waa macaamiisheen waa dad martino waa dad maalka gashtay wadanka waa dad soo hayaamay oo investment badan sameeyay dhaqaale wadanka galiya cashuur bixinaya baawur gadanaya guriyo gadanaya dukaamo gadanaya soo dawladdu waa ina caawisa dawladdu u baahan tahay wax maal gelina waa gartay percentage celcelis ahaan boqolkii intee ka yihiin dadka dibadaha ka imaanaya cabashadan qabo ee raba inay wax iibsadaan boqolkii 78 weyn gaareen waa baahi aad u weyn xagga sharciga u baahay dad waxa jira sharcigooda kale iska kalsoon oo dhahay aniga foreign-keen permit marabno visa iska joogana wadanka xataa aad uma rabno waa iibaan waa bixina meesha kire baa ka rabnaa bas laakiin dadkii hadda cuduradan iyo markay bilaawtay masiibadan hadda ka socoto ay dadkii waxay bideen inay sharci helaan soo waxay rabaan ugu yaraan 5 sano 10 sano inay Kenya joogi karaan soo darteed marka 2 bilood 3 bilood kuma filno maadaama ilmihii la soo cararayo soo marka waxay u baahan yihiin in sharci toos helaan dhaqaalahoodana ay ogaadaan meeshay gelinayaan wadankiina ay la noqdaan dad degan oo sida dadka caadiga Kenyaanka oo kale waa gartay Sheekh Liibaan qofka asagoo sharcigiisa haysta xaq u leeyahay inuu wax iibsado oo hadda waa la gataa dad aan deegaanka rabin oo sida sheegtay lacagtiba ku kaydsanay oo lacagoodii bangi loogu diraayo ama ehelkooda u qaadanayana wax idinka iibsada iyada laftirkeeda fursad inta la eegay bari mustaqbalka dadkaas ay siinaysaa ay kula tahay lahaanshaha markay hantidoodan ay la wareegaan inay sharci qaataan oo future-ka ay wadankan ka rabaan أنا waxaan ku wacyigelinahay ama aan kula talaa marba hadaad wadanka investment ku samaysid ina sharci permit ka qaato ku fiicanta anaha adii habsitii sana noqonaysa wadanka xoog baa ku yeelanaysa qof dhaqaale soo geliya noqonaysa qof canshuur bixiya noqonaysa adii qofka Kenyaanka waa sinaanaysa oo qofkii marka awood wuxuu leeyahay hadda wadanka dhaqaalaad ku leedahay inaad wax ku lahaatid meel ku leedahay marka ma keenayso inaad guri ka gadatid oo iska maqnaatid gurigaas kiraa ku qaadanaysa oo lagu ma dhici karo wadan adiga ka soo jeeda weyn safaarada leedahay oo xoolaaga malumaya foreign ahaan way ku yaalayaan dastuurka nidaamka foreign-ka dhigaya maraysa laakiin markaas rajadaadu iska yaraan guriga birka waa iska gadi karta ama laakiin hadaa rabto xoolaha inay wax ku taraan ganacsigaaga ku balaarto wadanka dhaqaale badan gelisid dadka Soomaaliyeed inta badan way ka jaahilsan yihiin qaabkan procedure-ka oo permit-ka aad uma garanayaan laakiin hindida iyo carabtii dadka cadaanka aad uga faa'iideystay waa gartay waxa adinka aad meesha ku haysaan waa hanti dadka wax idinka iibsanayana waxa dhaqaalaha uu gelinayo waa hanti ma guurta waa dhul dadka hadda ka cabanaya oo aad tiri waxay u baahan yihiin sharci inay helaan oo idila soo xiriiray iyo kuwa aanba ku baraarugsaneen laftirkooda qurbaha jooga raba inay wax iibsadaan ugu dambeyn maxaa talo hood siin lahayd ما شاء الله حمد سؤاشاس وواح مهمة إن فكر كي على لو ده قدرت كوالله إيه محاميشة ما هذا عي
أنا waxaan dhihi lahaa qof kaste oo Kenya guri ka gato ama investment sameeynaayo waxa u fiican inuu deganaansho helo taas u sababaysa xoolihiisa inay ka lumin taas u sababaysa inuu qofka awood uu ku leeyahay wadanka inuu dadka Kenyaanka la sameeyo wax qabsan karo maxaa qofka haduu fiisa haysto laysan ma qaadan karo KRA ma furo karo akoon ma furo karo maadaama guri sharcigu ka bilaada marka maadaama guri aad leedahay lacagta akoonka xagee lagu shubo hada lacagta lagu kireeyo karo meel lagu shubo mal waa inuu kamiri ku haya ama in dollar laga dhigo xawaalada lagu saaro sida darteed marka qofka haduu permit haysto waxay sabaysaa qofka laysan inuu qaato waxay sabaysaa KRA inuu qaato waxay sabaysaa inuu qofkii maarta akoon uu furto inuu dadka wadanka ka mid noqdo hantidiina kama lumayso waa nin deegaan haduu wax siyaasadana awood wuxuu helayaa qofkii inuu wax korsado magaalada fahmo isbitaalu teekra wuxuu rabo qabsan kara sida darteed marka waxaan leeyahay walaalaha macaamiisha nagu xiran Minara wuxuu ku siyaadisay ama aan ku caawin doonaa dadka walaalaha guryaha naga iibsanaya ama ku wargelin ama talahan u siinaya hadaad guri naga qaadato inaan ka caawin doono xagga deganaanshaha permitki si nidaam oo sharci dawladda waafaqsan qof kasta oo daneynaya marka inuu company-ga Minara la soo xiriiro ama guri ka iibsado arintaas waa bishaaro khaas u ah inuu sukuun wareerin inay ka faa'iideystaan ayagana ahaan waxa sameeyay hatta hadaad company kale wax ka gadanaysid ku dadaal markasto qof kasto Soomaali oo foreign ah oo wadankii rabo inuu dhaqaale geliyo inuu permit qaato sharci qaato kaas u sababa xoolihiisa inay ka lumin haduu ilmo ku dhalan wadanka ka caawiso inuu sharci ka helo asagana uu qofka Kenyaanka ku xaquuq noqdo waa meel aad degan tahay meel aan musaafir ku tahay meel safar sida marka musaafir waxa ka dhigay marka fiisa wadato laakiin marka permit haysatid waxa kamid tahay qofka wadanka degan oo kale sida darteed intaas aan kula aad baa u mahadsan tahay Sheekh Liibaan Cali Ciise agaasimaha guud ee shirkadda Minara Homes oo ah shirkad xoogan oo dhismo fara badan ka wada dalka Kenya guud ahaan qaasatan magaalada Nairobi sidoo kale waa madaxa ugu sareeya ee iibka iyo suuq-geynta ee Minara Homes waa ganacsade waa sheekul kulli aad baa u mahadsan tahay Sheekh Liibaan